war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu yiri in iyadoo la raacayo guuldarrada in la dabaqo mar kale waqtiga kama dambaysta ah ee la qabtay ee ahaa in 15 bisha Maarch lagu dhammaystiro hanaanka doorashada baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa Mareykanka waxa uu ballaarinayaa tirada shakhsiyaadka Soomaalida ee laga xayirayo fiisaha ama dalku galka. war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri waxaan u qaadaynaa talaabadan iyadoo la eegayo siyaasadda aan sharciyeynay 8 bishii Febraayo qaybteeda 212 faqradda ABC ee xeerka socdaalka iyo jinsiyadaha si loo xayiro siinta fiisayaasha kuwa la aaminsan yahay inay mas'uul ka yihiin ama ay ku lug leeyihiin wiiqitaanka hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. war-saxaafadeedka oo sii socday ayaa waxaa kaloo lagu yiri iyadoo la dhiirigelinayo horumarka la sameeyay dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay haddana waxaa jira in ka badan 30 kursi baarlamaan oo aan weli la buuxinin waxaana jira sii socoshada warar lagu kalsoon yahay oo ah qaladaad hanaanka doorashada ah. wariyaasha iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ka shaqeynaya inay taageeraan hay'adaha dimuqraadiga iyo hanaanka daahfurnaanta ayaa lala beegsaday handadaad cadaadis iyo xarig iyo xasarad ayaa sidoo kale lagu yiri. waxaa kaloo war-saxaafadeedka lagu sheegay in Mareykanka uu sii wadayo inuu qiimeeyo ku calaamadeynta dheeriga ah iyadoo la eegayo siyaasadda iyo agabka kale si loo kobciyo isla xisaabtanka isla markaana loo taageero kusoo gabagabaynta degdega ah ee hanaanka doorashada Soomaaliya jid lagu kalsoon yahay isla markaana daahfuran. ugu dambeyntii waxaa lagu sheegay in Mareykanka uu si adag u taageersan yahay dadka Soomaalida isla markaana ay wali ka go'an tahay inuu ka shaqeeyo horumarinta dimuqraadiyadda iyo barwaaqo wadaagga. Mareykanka ayaa sheegay in uu kordhinayo tirada dadka Soomaalida ah ee uu saaray xayiraadaha fiisaha kadib markii maamulada qaar ay ka dib dhaceen in doorashada golaha shacabka ay ku soo gabagabeeyaan 15 bisha Maarso. lama oga shakhsiyaadka ku jira liiskaasi.